agaasimo ku-xigeenkii hore ee laanta dambi baadhista FBI-da wadankaasi Mareykanka ayaa waxa uu soo bandhigay warqad ku saabsan wadahadal dhexmaray isaga iyo madaxweyne Donald Trump taasi oo ku saabsan faragelinta la sheegay in Ruushku ku sameeyay doorashadii Mareykanka ka qabsoontay sanadkii 2016. warbaahinta Mareykanka ayaa waxay ku soo waramaysaa in warqadani sirta ah ay sii xoojinayso wararka sheegaya in madaxweyne Donald Trump uu sharciga baalmaray. ninkan ayaa shaqada FBI-da waxa la geeriyay maalintii Jimcahayd waxaana madaxweyne Donald Trump uu ku eedeeyay in uu dhinac u janjeero baaritaanka ku aadan faragelinta Ruushku uu ku sameeyay doorashadii madaxtinimo ee wadankaasi ka qabsoontay ayaa waxa hogaaminaya Robert Mueller oo hore uga tirsanaan jiray FBI-da wadankaasi Mareykanka. waxaana ilaa iyo iminka uu xusay 19 qof oo uu rumaysan yahay inay ku lug lahaayeen faragelinta Ruushku ku sameeyay doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka qabsoontay. agaasimo ku-xigeenkii hore FBI-da wadankaasi Mareykanka ayaa in muddo ahba waxa ku socday baaritaan hoose oo ay sameeynayay FBI-da wadankaasi Mareykanka. waxaana uu ninkani xilka agaasimo ku-xigeenka dhinac iskaga taagay bishii January ee sanadkan aynu ku guda jirno si loo soo gabagabeeyo baaritaanka isaga ku socday. xirilaaliyaha guud ee wadankaasi Mareykanka oo ninkani shaqada ka yariyay ayaa waxa uu sheegay in kadib markii la soo gabagabeeyo baaritaan qoto dheer oo lagu sameeyo ninkani kaasi oo ku saabsan in warbaahinta uu gudbiyay xog aan loo baahnayn. madaxweynaha Mareykanka ayaa hore waxa uu dhaleeceeyay ficilada ninkani agaasimo ku-xigeenka ka ahaan jiray wakaaladda FBI-da ee dalkaasi Mareykanka waxaanu sidoo kale soo dhaweeyay tallaabada uu xirilaaliyaha guud ee qaranka Mareykanku uu shaqada ka geeriyay ninkaasi. wararka sheegaya in agaasimo ku-xigeenkii hore ee FBI-da wadankaasi Mareykanku uu kaydiyay macluumaad ku saabsan kulan dhexmaray isaga iyo madaxweyne Donald Trump iyo agaasimihii hore ee FBI-da wadankaasi Mareykanka ayaa waxa soo shaac baxday maalintii Sabtida ahayd. ninkani ayaa waxa uu cadeeyay in madaxweyne Donald Trump uu ku codsaday inuu daacad u noqdo isaga sidoo kalena uu meesha ka saaro baaritaanada ku socda la taliyihii hore ee madaxweyne Donald Trump. ninkani oo ka hadlayay sababta keentay in xilka laga qaado ayaa waxa uu sheegay in isagu wax khalad ah ama dambi aanu samaynin.